بسم الله كلمة waxay ku saabsan tahay ay daba joogtaa habeenkii aynu soo dhaafnay isniinta ahayd oo anaga jeedinay kelimo ku aadanayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame khaladaad diineed oo galay kelimo ku saabsan oo anaga soo jeedayna habeenkii isniinta ahayd ee darsiga u dambeysay xawana waa sabti soo sidaa ma aha waxaynu tilmaannay habeenkaas bifadli illaahi wa cawnihi lix qodob oo ku dhacay ina Warsame oo ku jirtay hadalkiisii uu ka jeediyay Jarmalka qodobadaasi waxay isu dhaxyaaleen qodobo gaalnimada ku cad kuwa daahir ku ah iyo kuwa min baabi al-ilzaam wal-luzum waxoo dhan baynu isku qiimeynay xukumkii sharciga nagu aadanaa baynu qadinay hawshaasi meeshii ku dambeysayna waad la socoteen waxaa soo gaadhay oo xigay isla habeenka qudhigiisa anigu kelimada aan jeedanayay ayuu ina Warsame asaguna kelimo jeediyay marka live ay ayadoo xilligaad hadlaysiiba asaguna hadlaayay bay xirtu ugu yiraahdeen laakiin anigu maalin kadib baan dhageystay dhowr goorna hadalka waan ku celiyay marka wixii aad ogeydeen ee hore maxaa iska bedelay baynu caaw wadaagaynaa insha Allah hawshu masjid hora oo xukumka hore in Cabdishakuur saaray mise Cabdiraxmaan buu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xukumka hore inuu saaray miyaynu ku wadaynaa mise waxbaa isbedelay bay hawshu caaw ku saabsan tahay hadalka dambe ee uu jeediyay habeenka isniinta uu jeediyay ina Warsame si guud waa hadal ka qiimo badan kana wanaagsan kii hore uu siiyay BBC-da ee aanu markaa aan tacliiqiyay aan ka hadlay hadalkaasi si guud wuxuu ku cadeeyay in khalad walba oo ku yimid hadalkiisii Jarmalku uu ka jeediyay uu ka laabto ka toobad keenay ilaahina uu ka baryahayo toobada inuu ka aqbalo dadka muslimiintana ay cafiyaan cid walba asaga taageertay ama mucaaradayna cafis buu weydiistay hadal yaraha quruxsan oo sidii Soomaali lagu yaqaanay ayuu la yimid laga yaabo in balaayo u qarsoon tahay laakiin daahirkiisaan inagu hadda inoo yaala dhowr qodob marka oo ka kooban aan ku soo ururiyo waxaan u jeedo caawa inaan baraarujiyo qodobka koobaad manduumada dimuqraadiga mucaasirada ee uu ka tirsan yahay ina Warsame waxyaabii horaan aan ku haysanay kama hadlayna caawa xugum hore oo manduumadaas iyo asaga iyo wixii la halmaala ay leeyihiin kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa xadgudubkii goonida asagu uu geystay iyo xukumkii khaaska inuu saaray asaga khuseeyay laba marka xaajoon islahay ha isdul saarina sida aan arkay caamo wax isku khaldaysa iyo wadaadda wax labaya ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada si guud buu u sheegay kuwa gooniba oo la baxay si guudna waa loo sheegaa kuwana gooniba loo magacaabaa daa'ifo iyo jamaac xugum la siiyey iyo xukuumad xugum la saaray iyo nin gooni loo baacsaday way kala duwan yihiin waxaan caawa ka hadlayno horaana ka soo hadlay waxay ahayd baacsi gooni oo ku aadanaa ina Warsame xadgudub khaas oo geystay dartii meenu isfahanay ina isfahanan u malaynaya taasi marka waxay ku salaysan tahay qodobka markaan hoos ooga dago wuxuu ku salaysan yahay ma dhici kartaa aadamuhu ayagoo dunuub badan ku dhacay inay qaybna ka toobad keenaan qaybna aysan ka toobad keenin si kale haddaan u dhigo toobadu ma qaybsami kartaa haafan haaf ma noqon kartaa hal tawbatu tabacad wa tatajazza bimacnaa khamrana waad cabtaa zinana waad ku aafaysan tahay inaad zinada ka toobad keento ma dhici kartaa adoo khamrida weli fuudahaya meed fahanteen waxaan u jeedo kufri hore adoo lagugu haystay mid dambe lagugu haystay ka dambe intaad ka toobad keento kii hore ma dhici karta inaad baaqi ku noqoto معناها كالله معناها سوي
المهم توبته ما كلا برانتا ذنوب تقاركود ما لقى توبة كيري كرا أظن قيب كتوبة كيرين بأصل فقهية ومسألة فقهية إن عبد الشكور هذان رهانو هذا الكيسيد ضم بتوبة بو أها حالنا وحكا توبة كيني أنت قدام بيسين كوهي سني إنه كون نري نبي كحد قدبي نبي حقيري دين تبو الدلميي نينك أسسو دين كايغا خطر أقليي نفتيسه خطر هاللو قليو warkaa dambe ku aadan yahay hadii toobadiisu asaxdo annaguna waxaan ceshanaynaa faylkii aan hawsha ka bixinay hawlo kale oo hore lagu haystay ma khusayso hawsha inaan celceliyaan u maynaya waxaan u celcelinayaa inaad fahantaan ayaan doonayaa jumhuuraha cilmi waxay qabaan inay dhici karto ay bannaan tahay in dunuubta qaarkeed laga toobad keeno adoo qayb kala baaqi ku ah oo dambi ku xiran uusan jirin mid walba iskii baad oga toobad keeni waana waajib kulli inaad ka toobad keento haddayse adugu aad khaldanto qaybna ka toobad keento qaybna sheedaan kugu sii aafeeyo qaybtaad ka toobad keentay waa laga aqbali waa laga yeeli inta kalena ku soo socaa lagu leh وهذا رأي جمهور أهل العلم وأنا سيدا صوابك بل ابن تيمية وحو قارسية ومذهب أهل السنة والجماعة قولك خلاف سنة وقول الخوارج والمعتزل أي هل كاسوا الله مراسحنا معها أرضي ابن القيم باكسحا بل ومن مذاهب أهل السنة خلافك حكجر بين أهل السنة لكن جمهور توحي قبان التوبة تتبعض وتتجزأ هذا مرك قول الجمهور وهو الصواب سامر كان أبلغو وحانو جيدا إن أقدبو هذا الكتحليلين تيسي صدح دنبي أما صدح كفري ونين ورسمكو هيستي هذا الكيسان دنبي وكعدي هينو كتوبت كانت كفرق كوبات وحوءها إن حديثك ناقصات عقل ودين إيه صحيحين كوتشيري أمضوا أي تلقته بالقبول والتسليم أكثر من 1200 سنة إنه إنكروا الضفيري با كوتشيري هذا الكهوري جرمل كوكتشيري ما هي مسماه سداسي أهيد هذا كان تبر وحولي حديث كاسوان اعتراف سنهاي والرميسنهاي بل إسكدا أسيقا سنة دنبان يعني رميسنا مصدر التشريع أصغنا وان رمى أوجهي وصحيح وانا قاتي إذن كفري أها تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بصحته كفري أها شعب بوجه توبت كيري قريبت إن فانتين بان لينيا كفري لبات كعدي هاي وكتوبت كينا وحوها وحيون نري نبي عليه الصلاة والسلام iyo culumadii buu xaqiray hadalkiisa sida ka dhalanaysa maxaa yeelay xadiidka naaqisaatu aqlin wa diinin waxa yiri suubanaha oo awal ulama ah hadduu xadiidku xaqiraad iyo liidid dumar xambaarsan yahayna nabiga ayaa dumarka liiday baa ka dhalan waa ka laasimtay haddaba nabiga ninka xaqira waa kaafir bi ijmaa'i umma hal kaana ina warsamad ku gaaloodo soo niri soo sida ma ahay كفرها إنه كتوبت كين هذا waa muuqata ama waa cadahay oo wuxuu yiri xadiidka lafdigiisa iyo matnigiisa iyo macnihiisa intuba waan i'tiraafsanahay waxaan kaloo i'tiraafsanahay sidoo nabigu ku fasiray oo ah naaqisatu aqlin wa diinin nabigu sidoo ku fasiray ay ahayd makhraatiga iyo salaada labaduba sideeda u qaatay buuri taana wuxuu ka badbaaday حقيردي النبي عليه الصلاة والسلام علماء أهايد تمرك حقيران ونبي تمرك حقيرين هل كدران إيرانينا اللازم كأهام مآل كهانا و أما هذا تظاهر برده وكبد بالي طيب كفر صدحات يعني وكتبت كان هذا كسوة كعد يعني له كفر صدحات هذا الكيس الضمب وكبد بالي أما وكتبت كان وحاوي hadalkii u dambeeyay dumarku iyo raggu waa siman wax ay dumarku ka nuqsaansan yihiin raggana ma jirana aynduu ka badbaadaya wuxuu kaga badbaadaya hadduu i'tiraafay tafsiirkii uu nabiga xadiidka ka bixiyay meeshii maxaa ka baxay inay siman yihiin meesha waa ka baxday inkiraada uu dafiray uu yiri ma jirto wax nuqsaan ana nuqsaantiba hadda sugahaya ila nabiga sugay tafsiirkiisana waan ogolahay waana qaatay buuri inaad fahanteen baan u malaynaya
saddexdaa kufri si cad oon ku dhiiran karo haddaan ahay aw xasaan ayaa aniga ii muuqato anagu cidna ma taqliidinayo wadaadda hadlayna waxba igama jiro dembigaygaan qaadaa wanaagaygana anaa iskale ma tamise maaha wixii aan wadaadkaa ku haystay si aan loo eedaynin baan u eedeeyey waa ogtihiin wadaaddaha lamid ma ahayn si aan loo eedayn ina warsame iyo meelaan lala marin baan la maray marka hadda aan ka hadlay qadiyadiisana waa inaan furfuro silsilooyinkii iyo jalfisti iyo minooyinkan daadiye waa inaan furfuro wey waad qoslaysaa baan u malaynaya khayr wey waa wixii furfurmi kara hadda wixii furfurmi kare ama la qarxin karo baynu furfuraynaa wixii furfur diida sidiisaan oga tegaynaa maxaa inoo soo hadhay saddex kufri baa soo hadhay saddex kufri maxay ahaayeen tacdiimu kaafirin kow iyo nidaamka islaamiga ah ee siyaasiga ah in la baksiyo midka reer galbeedka kufrigan la bombooniyo oon siyaaqa guud ka keennay labo kufriga saddexaad muxuu ahaa lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a haweenayda haddii madaxweyne laga dhigo burbur iyo balaaya ka dhalato shareecadu tiri asaguna maya ka yidhi saddexdaa kufri baa hadhay saddexdaa kufri si cad oo ayaga ku aadan ila dembiga markaad gasho waxaa wanaagsan in la magacaabo dilkii hebel aan dilay waan ka toobad keenay lacagtii aan ka dhacay cabdullaahi ilaahay baan oga toobad keenay kitaabka ow hebel aan ka xaday waa u soo celiyey waa ka toobad dembi walba iskii in loo cayimaa wanaagsan markaan ku dhiiranayna wuu ka toobad keenay ereyga aan odhanayn haddiise aan u raadina makhaarij fiqi ah ama sharci ah waxaan leenahay saddexdaa dembi si cad oo daahir ooga toobad keenay saddexda kufriga hore saddexdan dambana hadal wuxuu la yimid uu yidhi wax walboo khalad ah ama dembi ah oo kelimadayda ku jiray ilaahay baan oga toobadkan ooga noqday saddexda kufri ee dambe waxay guda galayaan towbada caamka ah saddexda kufri ee inoo hadhay lixda ka soo hadhay ee ku jirtay hadalkiisii hore waxay guda galeen hadalkan dambe uu yidhi wax walboo khalad diineeda oo kelimadaydii hore ku yimid waan ka toobad keenay allah nooga noqday كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هل كا ولا مر واقر رئيسان هل كا مركا وحا إيمانيا ما بنانتا هاي التوبة العامة مسألة فقهية إن أنا سكرنا وتوبت كأنا يسيد ودها قاركود مسألة إلا فرفرة وبانتا هاي يعني باشا لما قبيالة ديو لما نسياسة ديو وذا تقدر فايل قراء أركهاي باشو بهلا برقدري بهال دارود منا معه mid maxaan ku radaa direed iyo mid ree awna ma aha mid carbeed iyo mid Soomaali waa mid diineed hawl diineed weey waa aniga dareenkan qaba weeye wadaaduhu daacad iyo diin ka tahay waa laga yaabaa oo ilaahay ku ogay mukhlisiin yihiin laakiin aniga wadaadaha Soomaali baan tuunsanahay xasaan ahaan ee ogaada ama igu nacam igu diida wax badan baan ka soo arkay kuwii aan qaraabahina absame meeshaan kala gaarno soo garan maysaa xageen isla tagnay niman diinta islaamka gato dhan bay dhaheen waa fiican yihiin ma ogaadeenima ida haysa aydi waxaad igu samaysan ogaadeen meeshu ila gaaray Soomaaliya way ogtahay baashu marka hadaan ka soo tago kaftanka iyo qabyaalada ka soo tago waxay u laabanaysaa ma banaan tahay adoo dunuub badan oo ka nooca galay inaad si guud وتوبة كانت التوبة العامة اللي هذا التوبة العامة التوبة العامة ويدي بدن تايوان مسألة خلافية ومسألة خلافية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا الكيس في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى إيو أرض كيس ابن القيم كتب كيسا سيدا كجرتا فتاوى التوبة العامة ويبنانتا وحان لو حنبارا يا نينكي سيغود التوبة كينا وحال ليه هاي دنبي والبو كتوبة كيني اللهم إنو يمادو وح خاسسا مويين هدانا رغنينا ورسمو يدي دنبي والبا يخلط والبون كوغالي هذا الكهوري وكتوبة كيني إلهين ها عافيو مدن هاي عافيو وحالينا وكايا لي لكن هذا الله دنبي يقاب سعود كذا دنبي هدو كم وقضو هذا الكهوري عام كائن وحكو لابن ياهي
انت كل لابنيد كمادا توبت كينين لأنه waxaa dhici karta khaladaad waxa anagu khalad u aragno iyo kufri diineed u aragno inuu asagu arkin kufri iyo khalad hadaba marka kama toobad keenin bay noqonaysaa ruux muxuu ka toobad keenaa wuxuu arko inuu yahay jariime iyo dambi buu ka toobad keenaa haddayna isku aragtiba ahayn xaqana aad si guud u tiraahdo khalad walba ku yimid hadalkayga ilaahay baan uga toobad keenay anagu waxaan ku fasirinayaa khalad walba anigu khalad aan arko adna maxaad ku fasirinaysaa waxa kala u aragto aragteenni baa isweydaaran marka saan ku dhahan ma aqaan saan marka waxa u roo inaan dhaano bal toobal caama aan aqbalo oon dhahno dambi walba oo xataa saddexdii u dambeysay kufriyaadka ahayd kelimii u dambeysay ayaa baabi'isay oo toobadan dambe caamada ah yaa waxay baabi'inaysaa saddexdii inoo dhimanaydeed ku jirtay kelimadii hore waa haddaan dhahno التوبة العامة ومقبولة وأنا سيدا الراجحة سيدا كم موقنيسة هذا الله علماء كم موقنيسة إلى أمن كنا وحن رهنا وخسيسين هاي وحبا الله بنا عاد مهلين لكن درين بانك قبا إرجعوا علعيني أولي هاي حق وضع ضمرك وتجنانا يا عند عقبق مايو ولقي بوا وضع هيا واسي وضع هيا ما فهمين وحكم مقن وبعد جوبيو ما فهمين نبي عليه الصلاة والسلام وحول الدنيا وحال جعليسيي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وحال النبي يقول لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ضمرك يا قبلها يان لكون محايا لي ووهل قالئة نبي يقول أنتم ضمر حرمية أما قيمية أما شرع قدريسي ما جرتوا أصدق قرية شرع الله ماذا شرع هذا إني سنجرين حق قدرين تأيو حقوق الضمرك waxa marka uu baadi goobi ina warsamo uu la waalanaya ka maqan uu la miirbeelay ma fahmin idan saadartay dareen baan qabaa toobadiisa caamka ahayd in wax u laaban yahay dareen baan qabaa hasa ahaatee in badan baad eedaysayna dareenkaasi ku shaqo gali maayo waxaan leeyahay ilaa amar dambe toobadii si guud baan u aqbalay oo toobal caam aan leenahay saddexdii kufri hore iyo kuwan dambaba waxaan ka soo qaadaynaa inuu ka toobad keenay taa waxay khusaysaa khaladaadkiisii lixda ahaa hawlihii aan ku haysay dimuqraadiyiin ma khusayso waxaa kuu soo haray ishkaal fiqi oo kala dhiman oo ah towbatul kaafir maxaa lagu aqbalaa shardu towba iyo rugnigeeda asaasiga muxuu ahaa الندم بأوجو أساسا ركنك التوبة أما شد أوجو علوس وأنا تقوم ما يسوق كشلي توتو وحي آثم يصير دم بيها إن أسفنا نملينية هذا مرك أرين تاسم حال قصمي كفري وان كتوبة كينا وان كنود الكلية ما كفر انتهاي مسوى إن لهلو شليتو يقوم ما له يندم يندم لهلو laba qaab baynu uga jawaabaynaa shardiga ama rugniga in la helay baa muuqanaysa qodobka koobaad hadalkiisa markuu nin sanka taagahaya oo nahalabsanaya oo diintaanada ku mashxaradaya oo quursanaya oo batraana oo wuxuu ahaa wuxuu doono ku hadlay maalinkuu joogay angala markal ula joogay markuu halkan yimid halka jeediyeyna ee afrikan u noqdayna hadal Soomaaliyeed oo xushad ku dheehan yahay oo dagan oo qabow oo miskiinnimo ka muuqato ilaahay baa miskiin loo noqdaaye ayuu ahaa markaan qiimeeyna muuqaalkiisa waxaan leenahay ina warsamo waa ka qoomameeyay xumaantii iyo khaladkii uu galo nadaama ka muuqatay ma dhihi karaa mise ma dhihi karo wadaado waa ila fadhida aan tashanne hawsha inuu ka shuuraynay ولا ديكرا هداد ديدان قدان كبح موايو توبة الكافر إيه توبة المسلم عن المعصية اسكو حكم معها عامضة اسكا خلدنتاي علماء اسكا ما خلدنتو لكن وحاجر عام علماء اسمه ده إن بدنا واقصوها الله توبة الكافر وحالقنا قاشي من مجرد إسلامه با توبة مثل ندامة لقربا إيه قومما لقربا
ninka kufri iyo gaalnimo ku dhaca ama kaafir ba ah markuu toobad keenayo ma inuu kufrigu uun ka tagaa u tooba ah mise waa inuu ka tago xaggana uu ka qoomoodo ka shalaytoodo الصواب عند العلماء على الراجح من أقوال العلماء حوي توبة الكافر ومجرد إسلامه إنه كفر كتغو كيما دكلي أو توبة إنه كشليتوده وحي ورو سمين جرى شرط معها طاو حلو شرطيا ذنوب تكلية معاصي كلية أما الكفر وحال ربا كلية إن الفراها كلام بحضو على حد قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف انت مركان جبينو waxaan leenahay khulaasadu waxa dhiba kuma jiro inaan dhahano si gaara iyo si guudba ina warsamay lixdii kufri aan ku haystay uu ka toobad keenay laga bilaabo caawana naftiisa khatar kuma gelin kartaan lixda qodob haddaad si kale u khatar gelinaysaa oo xisaabo kale idinkaga maqan yihiin ama howlo kale aad ku haysa idinka idin taallaa waa isfahananu manaya laakiin lixda aan idin ninkaasi ha lagu khatar geliyo laga bilaabo caawa anugu ma qabahee in lixda lagu khatar geliyo laakiin fara kaloo ilaaban waa jira waadna ogtihiin faraha kale la iskuma haysanay ma ogtihiin kuwa miyaad ugu haysateen mise kuwo kaloon xisaab cusub baad ugu haysateen xisaabta halkaasay ku xidhantay waa sida ii muuqata wey waxaa jirtay kelimo cali wajiis baa jirtay oo igu aadanayd aniga kelimada cali wajiis waxay tiri gabadhi meesha laygu furi fogaad ha joogee kelimo tacliiq yar iyo muslim qaadi kara ma aha waruba daaratin naafica xadgudub diineed oo ina warsama uusan gelin buu cali wajiis galay xadgudubka uu galay wixii shakhsiga aniga igu saabsan kuma mashquulo horaan bay absamay ku soo daaleen ku mashquuli maayo taas sheeka barle iyo been meelna kama socoto reer nairobi baa ku daalay reer muqdisho hadda soo rucleeyey way ku rafaadahayaan marka laakiin khaladaadka iyo xadgudubka diineed cali wajiis uu galay ee diintu majara habaabiyey fadhi gooni aan ka qaban doono hadduu alla yidhaahdo waxaana caddayn doonaa nebi maxamed inuu nabi inuusan rumaysnayn wallahu aclam